Somaliland waqti xaadirkan waa maamul goboleed sidoo kale BBC-da ay xiriir ku jirtay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta YouTube channel-ka daawanaysaan waa caraleena. Fadlan haddii muuqaalkan uu soo gaaray subscribe, like, share, comment. Adiga ayaan wakiil kaaga dhiganay. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa arrintii xariga Miss World iyo Somaliland. Somaliland waxay noqotay meel la xifaaltanta dowladana aqoonsi rabta waqti badan iyo qarash badan muddo soo xifaaltamaysa ama muddo soo sugaysay inay ka madax banaanaato Soomaalida kale ama koonfurta rabta inay dowlad madax banaan noqoto la aqoonsado aqoonsi heer caalami ah hesho haddana xifaaltan kula jirta dad magac ku leh baraha bulshada TikTok oo ah meeshii ugu yareed oo qof maanta magac ka sameyn kara si fudud magac ugu sameyn kara maamuusna ka heli kara dowladda oo qof dowladda ayuu maamuus ka heli karaa xildhibaanada qaar ayaa casuumi kara wasiirada qaar ayaa casuumi kara maahan macnaheedu in qofkaasi markaasi uu yahay qof dowladda u shaqeeya ama dowladda ka tirsan Miss World sidii sheegayso waxaa lagu xujeeyay inay ID card la soo bixiso ID card ay soo bixiso oo dowladda ay shaqaalaha dowladda ay kamid tahay intaas aan weysto waxa leedahay ID card dowladda haysatay intaas kan ID card ka soo bixi dowladda u shaqeysa calanka haysataasan waa bana waliya dowladda u shaqeeyay in calanka u shaqeeyay hadal ayay ka sheegtay ayadoo live ku jirto Daar Cali Sow oo live kula jira ama live-kiisa ay daawanayaan dad aad iyo aad u fara badan ay hadal ka sheegtay Miss World xarigeeda bal aan daawan muuqaalkaas ninka ma aragtay waa xawaale hay istaaqfulaa wada isaaqaya dadka sidoo sidoo kale Miss World hadalka ugu saameynta badan ay sheegtay waa hadal ah in tartan ama live u dhaxeeya ayada iyo Habi ay ka sheegtay in Muqdisho iyo Hargeysa midkii ay dooran lahayd Muqdisho ay dooratay calumaalahan xamaray ku barbaartay magacna waa ka xidigtii xamar waaye dabcan waa meeshii ay ku dhalatay ku barbaartay dadkeedii ay joogeen macnaheeda kama dhigna in Hargeysa nacayb ay u qabtay waqtigaasi laakiin maanta haddii lagu dhaho meesha aad ku nooshahay iyo meesha aad ku nooleen kala dooro waxaad dooran lahayd meesha aad ku nooshahay sida cabdi waxay dooratay magaalada Muqdisho oo meesha ay ku dhalatay ah laakiin waxaa loo sheegay in muuqaalkaasi la haayay Miss World ayadoo faraxsan oo Hargeysa hamuun u qabta ayay ka baxday elboorka Muqdisho muuqaalkan ayaa ahaa muuqaalkii ugu dambeeyay ee iska duubtay bal daawadaasna sida ay waqtigaasi farxadda u muujinaysay iyo maxaan caradii goobtiyo suradii dhaqankiyo fankay maxaan ku ugu dambeyn waxay noqotay in la soo tarxiilo ay magaalada Muqdisho oo ay ka baxday waqtigii barqada ahayd haddana u soo kala doonato tarxiilkeediina uu noqdo muddo 4 saacadood oo ay ku xirneed elboorka Hargeysa ma ahan dhacdaasi dhacdo fiican ama wax qurux badan haddii dowladnimo aad doonaysid ama hankaagu uu yahay meesha maanta ay joogto dad badan ayaa ka imaaday magaalada Hargeysa caado ayay u ahayd in dadka xitaa mararka qaar ay imaado magaalada Muqdisho inaysan dib ugu noqonin waxaan sugnaa live ay ku jirto boqorada isteelka taas oo ay ku dooran doonto Muqdisho iyo Hargeysa haddaba ma lagu furi doonaa saygeeda haykal ma dhici doontaa in laga furo kadibna la dhaho ka daneyso ee aad wadanka laakiin uma qurux badna Hargeysa shacabkeedii waa shacab wanaagsan oo dadka jecel maanta haddii ay rabi lahaayeen in ay go'aan waxaa loo qaadi lahaa afti dadweynaha laakiin waxay kasoo horjeedaan dowladda ayaana ah mid cunsuri ah oo kasoo horjeedo hanaanka dowladnimo ee guud ahaan Soomaaliya marka shacabka waxaan dhihi lahayn dad walaala leeyahay insha Allah mar waa lagu wada noqon doonaa meeshii aan ka wada imaanay meeshii quruxda badneed iyo waqtigii iyo waayihii wacnaa ee Soomaali weyn diiba la xiraayo qof TikTok caanka ah waa arrin la yaabkeeda wadata
miswal ayadoo xanaaqsanaya live-ka wax ka sheegtay waxyaabo fara badan, xitaa waxay sheegtay in ay kaga digtay hooyadeed inaysan aadin magaalada Hargeysa, laakiin waxay ku madax adeegtay, waxayna u sheegtay inay dadka soo dhaweynayaan, dad wanaagsan yihiin. qof markaa intaas kuu soo huray haddii aad adigana ku xumeyn aad dhahdo elaboorkaba kama bixaysid, waa arrin kaleeto oo xanuunkeeda wadataa. miswal waxaa kuu rajeynayaa dad ku jecel ayaa jooga Hargeysa, guud ahaan Soomaaliya, meelo kale oo u safartidna insha Allah way jiri doonaan oo gobolada qaar. safar wacan ayaan ku rajeynayaa insha Allah. dowladda Somaliland Somaliland waqti xaadirkan waa maamul goboleed, sidoo kale BBC da ayay xiriir ku jirtay muddo ka hor inta aysan bixin miswal. waxay sheegtay inay kasoo horjeeda hanaankeeda dowladnimo, BBC da ay u aragto carqalad ay ku tahay dowladnimada iyo jiritaanka Somaliland. xiriirka ayaa loo jaray. marka Somaliland waxyaabo badan ayaa jira oo haddii dhaqdhaqaaq yar lagu arko xiriirkaaga loo jaray. qof shakhsi ah baraha bulshadana magac ku leh in la iska dhaho noqo ama idaacad ama TV la dhaho waxaan u jarnay xiriirka, waa arrin ayadana sheekadeeda wadata. muuqaalkan intaas ayaan kaga hadli lahaa maanta, maadaama miswal xirigeeda uu ahaa shalay. waxaan islahaa wax badan ka ogow kadibna usoo gudbay bulshada. miswal waxay sheegtay xarigeeda inuu ku saabsanaa keliya kala doorashada magaalada Muqdisho iyo magaalada Hargeysa, taas oo ahna wax aan lama filaan ah ama aan la filaynin